ilaa 5,000 oo qoys oo ah dad barakacayaal ah oo ay saameyn ku yeesheen fatahaada webiga Shabeelle ee qaar ka mid ah tuulooyinka degmada Balcad ayaa maanta gargaar ay gaarsiisay hay'adda Sodma oo kaashanaysa dawladda Ruushka. gargaarkaasi oo isugu jira cunno kala duwan ayaa loogu talagalay in markaasi ay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah oo ay saameysay fatahaada webiga Shabeelle. munaasabada lagu qaybinayay gargaarka ayaa waxaa ka hadlay isla markaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Furdug, agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma iyo wasiirka dawladda maareynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle. waxayna sheegeen in gargaarkani ay uga mahadcelinayaan hay'adda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Ruushka isla markaana uu yahay mid aan markaasi dabooli karin baahida ay qabaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Balcad. waxaan maanta halkaan aan ku qaybinaynaa 5,000 oo qoys oo raashin ah raashinkaas oo nooga yimid dawladda Ruushka oo ugu tala gashay dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo daadadka iyo colaaduhu ay ku habsadeen ayaa maanta degmada Balcad waxaan ku qaybinaynaa 5,000 oo qoys anagoo kaashanayna wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle. dadkan aad u jeedaan waa dadkii intaan way ka badnaayeen. waxaan riboor ku haynaa 13,000 oo qoys in ay ka soo baxeen daadadka iyo fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle oo saacadan aan joogno magaalada dhinaceeda hadda sida aan maqashiisanahay ay biyihii soo gaareen. dadkaas oo ka soo qaxay beerahoodii hooygoodii una soo qaxay degmada Balcad dhinaceeda aan wali aysan soo gaarin ayaan waxaan ugu talagalnay inaan 5,000 dhig joojin aan ugu sameeyno. gudoomiye waxa aan rajaynaynaa 5,000 inaysan waxba ka kaafin karin iyo wasiir inay hay'addu ay diyaarinayso qorshe kale oo ay dadkan wax ugu soo gurman lahayd. gurmashadaas oo isugu jirta raashinada kala duwan oo aan filayno dhawaantan inay noo imaan doonaan waxna aan ka qaban doono baahida hadda muuqata oo indhaha aan laga qarsan karin. maanta waxaa goobjoog u nahay 5,000 oo qoys oo aan habeen hore kala soo wareegnay hay'adda maareynta masiibooyinka inaan maanta gaarsiinay bulshadii una qaybinay intii Ilaahay calafkooda uu ka dhigay. waxaan rajaynaynaa insha Allah hay'adda ay nagala joogto agaasimadda inay arkeen baahida iyo xaaladda degmada Balcad ee dhinaca fatahaadaha iyo xaaladda ay ku jiraan bulshada reer Balcad. waxaan codsanaynaa anigoo ka wakiila bulshada inaan dhahno intaan naguma filna dadkii soo barakacay ee aan haynay maalmii ugu horeeyay 13,000 ay ka badnaayeen tar intaas ku dhowna hadda ay soo gaareen magaalada oo weli tirakoobkooda uu ku socdo. waxaan codsanaynaa hay'adda maareynta masiibooyinka iyo hay'adaha internationalka iyo kuwa localka daneeyo inay dadka masaakiinta garab istaagaan inay garab istaag u muujiyaan. waxaan baaq u diraynaa oo codsi u diraynaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle oo asina ugu sareeyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo aan leenahay baaxadda iyo dhibaatada ay reer Balcad xilligan ku sameeyeen basanadkan biyaha ku sameeyeen wax reer Balcad kaligood ku filan maaha. beeriyo dhan way soo laayeen, magaalooyinka tuulooyinka way soo laayeen biyihii. maanta waxay celcelis ka yihiin xaruntii degmada xaafadihii degmada celcelis ka yihiin biyaha. hay'adda Sodma waa ku celcelihaa runtii garab istaag la yaqaan ay bulshada Soomaaliyeed habeen iyo maalin ay la garab taagan tahay, gurmadii la garab taagan tahay, gargaarii la garab taagan tahay, gacansiinii la garab taagan tahay. waa ku ammaanaynaa shaqada wanaagga badan ay u hayso ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Balcad. dhibaatada ku soo laalaabatay ee fatahaadaha webiga uu sameeyay oo runtii dalagii iyo daaqayba la tegay oo ummadii maaragtay iyo saas barakac ugu sugan tahay, guryahoodii ku waayeen, beerahoodii ku waayeen, noloshoodii maaragtay ay ku waayeen. aad ayaan uga xunnahay, waa la damqahaynaa, waana la xanuunsanaynaa. waxaana leenahay Ilaahay ha idin maaragtay gargaaro, Ilaahayna maaragtay bedel khayr qab ha idinka siiyo beerihiinii. anaguna ka wasaaradahan inaan idin qaylino oo maaragtay Sodma kaliya ma hay'adaha kaleentooda caalamka aan ku qaylino oo idin soo gurmano oo idin garab taagna diyaaraan u nahay.